waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo fariinta aan ka wadno dawladdeena federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo salaanta inaan idin soo gudbino idinkoo reer Buulo Barda ah oo isugu jira ciidankii iyo maamulkii iyo odayaashii dhalinyaradii iyo haweenkii salaantaas aan idin wadnaa waa tan koowaad wafdigaana wafdi ayagu ay ka dambeeyeen oo amar ra'iisul wasaaruhu markuu uu booqday beledweyne oo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka iyo ay la hadleen arinta buundadan ayaa shaqadeeda la bilaabay runtii wasiirka arrimaha guduhuna shaqadaas lafdhabar buu ahaa maantana waxay keentay in la soo gurmado oo hay'ado afar ah oo waaweyn oo caawiya Soomaaliya hay'adaha caawiya kamida inay noo joogaan oo nala socdaan ayagoo degmadana meelaha kale oo baahiyada kale oo jirtana ogaanaya midii guud oo buundada ku saabsanaydna injineeradii in la keenay injineerada la keenay mid kamida wuxuu ka socdaa wasaaradda howlaha guud ee dawladda federaalka injineerka kalena hay'adahan baa waday waa nin mutakhassis ah buundooyinkii waxaan rajaynaynaa buundadan way dhismaysaa ilaahay idankiis dagaalka qayb kamidana way inay dhinsanto inay burburto waa dagaalka qayb kamida inay dhinsantana waa jawaabtii dagaalkaas looga bixinay marka way noo dhismin doontaa degdeg laga laabtaba hawsheeda waa la galayaa mana laga maarmi karaba isku socodka kaliya Buulo Barda kaliya ma ahan ee goboladii oo dhan bay kala jirto waxa weeye Soomaaliya bartamaheedii wixii xagga ka xiga buundadaas iyo wixii xagga ka xiga waa kala go'an yihiin hadda marka muhiimadaasna way ku fadhidaayo ummaddu diyaarad ma wada raaci karto dhammaan wixii loo baahnaa oo raashin iyo isku socod iyo wixii oo dhanna way ka baaqsadeen oo hadda ma socon karaan marka buundada way noo dhismaysaa assessmentigana waa rajaynaynaa waqtigooda inay qaataan hay'adahan soo raacay oo runtii wiilal Soomaaliyeed weey laakiin waxay matalaan hay'ado waaweyn bay matalaan USAID iyo NIS hay'adda la yiraahdo IOM iyo ERI waxa weeye gobolkan ilaa Maxaas iyo Matabaan iyo way ka shaqeeyaan beledweyne iyo ayay shaqooyin badan ka soo qabteen marka haddana waxay u yimaadeen inay shaqadan la qabtaan wada qabanno shaqadan inaan wada qabanno waajibna wada yaalo wasaaradda howlaha guud lafteedu shaqada qayb bay ku leedahay oo waxa weeye projectiska meelaha burbura buundooyinka iyo wadooyinka iyo shaqadoodii way marka arintaas way xalismaysaa waxaan kaloo rabnaa inaan baliyeeyo oo bogaadiyo reer Buulo Barda oo anigu aan ka tirsanaa reer Feerfeer mustaxiil baan ahayn laakiin waqtiga walaalahay baa halkan ku soo kara aniguna waqti kamid ah waa la joogay dugsiga macallin Ciise ayaan dhigan jirnaa anagoo yaryar 79 marka qayb kamid ah noloshaydii Buulo Barda waa ku soo qaatay waa magaalo runtii qadiim ah magaalooyinka Soomaaliya inay maantay duruuftan ku sugnaato aysan ahayn laakiin la baday oo cadow aan u naxayn uu baday way marka waxaan bogaadinayaa sida geesinimada leh sortasi oo loogu gigsaday oo aan la isugu dhiibin cadawgii hareereeyay oo dhinacyada ka xiray oo go'doomiyay oo cunaqabateeyay inaan markii u dambeysay la isku dhiibin oo deegaamo badan baa isku dhiibay oo loo gigsado ayadoo la kaashanayo runtii aan u mahad celinayno ciidanka Hiil Walaal oo ahaa dhabarka lagu tiirsan yahay oo ugu weyn oo suurta galiya runtii niman walaalaheena oo maaragtay nala damqaaya oo maaragtay noo soo gurmaday ayaguna inay nagula noolaayeen meeshaas oo wiilal badan oo qaaliya ay ku dhinteen difaaca deegaankan iyagan runtii waa bogaadinaynaa waana walaal jira mana laga helo hatta meela ciidamada kale oo hadda ayaga la midka laga ma helo intaan oo kale marka waa ku mahadsantiin taliya naga qaad salaantaas si gaar ah aan maaragtay idinku mahad celinaynaa arinta dagaalka socda maanta reer Buulo Barda waxay haystaan fursad ay uga arsadaan cadawgii go'doomiyay oo Soomaaliya dawladeedii ayaa u soo jeesatay dagaalkan inay qaado reer Hiiraan si guud
laga soo bilaabo 2009kii waxay ku waayeen dadka ugu badan oo gobolkan dadkoodii qaaliga ahaa oo haldoorka ku waayay Cumar Xaashi Allah u naxariiso wasiirka amniga ahaa ambassadorkii Laqanyo dadkii tirada badnaa la dhintay kuwii ayaan dhaweeyto xildhibaan Aamina iyo dadkii tirada badnaa oo dhintay nabadoonadii hadda cilmi hagar iyo nabadoonadii lagu qarxinayay buqa qabla eeriyadeeda ayagoo u socda maalmo dhaweeyto ilaa iyo 2009kii ilaa iyo hadda way taxayeen hadii la yiraahdo hal tiriyana waxaan u maleynayaa inteenaan in ka badan oo la isku keeno way ka badan yihiin marka waxa la haystaa fursad maanta looga arsan karo fursad aad garab dawladeed garab caalamkii loo haysto dawladii Soomaaliya diyaar ay u tahay lana arkay oo la cadeeyay in laga guuleysan karo oo reer Hiiraan ay buruuf gareeyeen annagoo halkaas aan sanad ku dhawaad galmudug baan kula jirnay oo marbay sidii daadkii damceen inay qabsadaan sanad baan furinta ku jirnay sanadkii hore 2021 January laga soo bilaabay ilaa October furin baan ku jirnay runtii waa isku baabeen ayaguna dhibaato waa isku geysan xoogan xaka waana la hakiyay socodkoodii gobolkaas oo dhan ilaa Puntland inay u gudbaan ay u taraarxaan birabeen marka yaani maantana Hiiraan waxay buruuf gareysay oo cadeysay jabka nimankaas la gaarsiin karo waana bulshada xooga bulshada ku jira ayay muujinaysaa arintaas waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado magaalada Ambuula Barde ama degmada Ambuula Barde oo degmo balaaran oo baaxad weyn hay'adda Sodma la yiraahdo hay'adda maareynta musiibooyinka runtii oo ah midda dhaawacyada qaadaysay halkan ka qaaday ka daabushay midda beledweyne ka daabulaysa dhaawacyada gargaarkana ilaa maxaas gaarsiinaysa waxaan ay diyaar u tahay ilaa waa gaarsiina Jallaqsina waa la gaarsiiyay bakhaaraday ku jiraan halkan lafteeda wax inay ku jiraan bakhaaradan u maleynayaa gudoomiyaha cusub hadduu xilka la wareegana baahi kasta oo soo gudbiyo diyaar waxa loo leeyahay in lagu abaalmariyo dadka reer Hiiraan oo wax iska celiyay wixii ay soo gudbistaan inaan keenna anagana haddana waa la idinla fariisan doonaa group baahiyada rasmiga oo meeshan ka jira lama koobi karo laakiin kuwa ugu daran oo 1 iyo 2 iyo 3 sanadkan hadii la fuliyo sanad soo socotana kuwa kale la fulin doonaa marka boondadii arinteedii hadda waa sheegis badan uma baahna waa mid loo yimid shaqadeedina waa la wadaa wixii kale 1 iyo 2 oo daranna waa sheegaysiin safkiina ku jirnaa dagaalka aad ku jirtaan baan kula jirnaa waxa weeye Buula Bardana waa sidii ay u furantay madaxweynaha gobolkan ka soo jeeda Jallaqsi iyo Hiiraan iyo uu ka soo jeeda dadkoo dhan baa ka soo jeeda anagoo dhan baa ka soo jeeda marka Hiiraan maaragtay ma dayacna runtii haddana waa ka muuqataa meeshii la tagaba sida ra'iisul wasaarihi 2 jeer buu wuxuu tagay beledweyne Jallaqsi waa u soo loo socdaa hadda maalinka dhawaatana buundada Jallaqsina waa runtii way ciidamada geesiyaasha way ku mahadsan yihiin inay ka celiyaan hal maalin bay rabeen inay labada magaalada isku hal daqiiqo balan ah ayay rabeen markay indhuhu ha taagnaadaan meelaha iskaartimaan la weeto qaayb meel galgaduud ka tirsan oo daraad laga qabanayay markay ka baxayeen ceelkii waa dumiyeen matoorkiina waa qaateen waxay kala dumiyeen shirkadii iskaarsiinta dukum daakum bay ka dhigeen marka shirkadaha isgaarsiinta iyo ceelasha biyaha iyo buundooyinku ilgaar in lagu hayo u baahan yahay waardiye gaar in la saaray u baahan yahay nimankan hadda dadkii bay cadow ay u yihiin wax kasto ay ku curiyaamin karaanna way sameynayaan